الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة والأخوات موضوع أي ولا له صوت شديد إنه وحكي لهذا وكسب سيهي القبلية وآثارها السيئة قبيلة iyo raadadkeeda ama natiijooyinkeeda xun waxaan u malaynayaa waa mowduuc aan baahi aad u fara badan u qabno aadna looga hadlay laakiin in aad loogu celceliyo u baahan mujtamacaadkii rususha loo soo diri jiray hal qodob waa ka dhaxeeyay oo ay ku khaldameen qodobkaasi wuxuu ahaa inay ka inxiraafeen ilaahay tawxiidkiisa iyo keliyeelidiisa iyo xaqiisa inay ka inxiraafeen taa marka laga gudbo qolo walba waxbaa gooni u ahaa dhaqamo kaloo khaldan ayaa gooni u ahaa Soomaalida maanta nool waxaan u malaynayaa cudurrada ugu muhiimsan ee in laga daaweeyo ay u baahan tahay waa qabyaaladda maxaa yeelay dhibka ay keentay waa midka qurbaha idinku soo xareeyay waay meel ka baadon ka fiirinay waxa halkan idin biday oo qurbaha idin keenay oo ilmihiinii iyo gurihiinii iyo caruurihiinii khatarta geliyay oo midhahan kharaad aad ka goosanaysaan waa aasaartii qabyaaladda marka waxaan u malaynayaa waa darsi mudnaantiisa leh in aad loogu celceliyo in badanna runtii waa laga hadlay mu'tamaraadka iyo culimada iyo si guud iyo si gaarba waa looga hadlay waxaan jeclahay marka mowduuca in aan saldhig uga dhigo aayadda qur'aanka kariimka ee ku jirta fi suurati al-Hujuraat alla yidhi tabaaraka wa tacaala yaa ayuha annaasu innaa khalaqnaakum min dakarin wa unsaa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير آيات داسي وحبا كما تقل وربكان يدي تبارك وتعالى ضضو وحان إذنك أبورني لب يددك حقوت laba ruux baad ka timaadeen asalkiin mid waa lab waa aadam
midna waa dhadig oo waa xaawo labadaasaan asal ahaan idinka abuuray طبعا sida quraanku sheegay labadoodu haddana asal ma wada ah dakarka asal ah laana حواء waxa laga abuuray nabi aadam laftiisa laga abuuray oo labka ah asalkaasi quraanku tilmaamay wuxuu inoo cadaynayaa abtirka kuma kala fiicnidin asalka isku mid baad ka tihiin xadiidkii nabiguna waa midka tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh kullukum min aadam wa aadam khuliqa min turaab dhammaantiin aadam baad ka timaadeen aadanna carraa laga abuuray halkaa waxaa lagu tilmaamayaa oo lagu caddaynayaa asalku waa isku mid hal aabbo iyo hal hooyo carruurtood baa tihi ka cad ka madow ka maariinka ka cas midka gaaban midka dheer midka tirada yar ka tirada badan ka la yaso midkaan la yasin kulligiin hal asal baad ka timaadeen nabigeenuna salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiid uu ku fasirayo uu leeyahay aadam waxaa laga abuuray min jamiici alardi dhulka oo dhan baa laga abuuray bimacnaa dhulka qaybihiisa kala gedisan xagga midabka iyo dabeecadda dhoobo wixii oo dhan wadataa laga abuuray aadam markaasay carruurtiisii waxay ku yimaadeen carradii laga abuuray dabeecadahay wadatay iyo midabaday wadatay bay carruurtiisii noqdeen asalku maadadu marka waa carrada wuxuu nabigu yidhi sal alla alay wasalam carrada laga abuuray qaar waxay ahayd madow qaarna waxay ahayd guduud qaarna waxay ahayd caddiin intaasoo laysku daray baa midabku carradu ka koobnaa carruurtiisii waxay ku yimaadeen mid madow oo ka soo jeeda carradii madoobayd asal ay u tahay mid guduudan oo carradii guduudnayd asal ay u tahay mid cad oo carradii caddayd asal ay u tahay mid intaba isku darsaday oo midab kaloo maariina qaatay dabeecadihii carradu ay lahaydna ee dhulka ay kala timidna dhulku midna waa mid suubaan ahoo adag midna waa dhul dabacsan oo jilicsan dabeecadihii carruurtuna sidii bay ku yimaadeen dabeecaddeenu midna waa suubaan adag oo qallafsan oo macangag ah midina waa sahlan yahay oo waa dabacsan yahay xagee ka timid carradii aadam laga abuuray baa sidaa ahayd macaanidaasi waxay tilmaamaysaa asal aad ku kala fiican tihiin ood isugu faantaan oo aad ku kala sarraysaan oo aad ku kala qiimo badan tihiin ma jiro mid inaga mid oo nuur laga abuuray ma lihin mid inaga mid oo laga abuuray dab laga abuuray ma jiro mid maaddo kale laga abuuray ma jiro asalku hadduu isku mid yahay waxaa dadkan kaga fiicnaan karto ma aha dhalasho marka dhalasho kagama fiicnid abtir kagama fiicnid taa iyadaabaa meel la saaray markaasuu nebigu daba dhigay salawaatu rabbi wasalaamu calayh asalkiinnu hadduu isku mid yahay laa fadla licarabiyin calaa cajamiyin walaa licajamiyin calaa carabiyin mid carab ah mid cajami ah wax fadli ah lama dheera mid cajami ana mid carabi ah fadli lama dheera ilaa bittaqwa waa arrinta aayadda akhirkeeda ku imaan doonto halkaa waxay marka inoo asaloon helay in dadka lagu kala fadilo oo lagu faantamo abtir iyo dhalasho iyo nasab waa wax ka baxsan ilaahay tabaaraka wa tacaala sunnadiisii iyo nidaamku jideeyey waana waxaan jirinba waa arrin aan xaqiiqo lahayn
وأرنا نصلحين وأرنا نراد لهين كان آد يسيسو اسكميل بعد كسو جدان كان آد محو أهاي آد هوسو فيرينيسو الحقيريسو اسكميل بعد كسو جدان marka waxa aad kaga fiicnaan karto miisaanku ma aha dhalashay horta meel inaga dhigtaa iyada ya ayuha naasu inna khalaqnaakum min dhakarin wa untha asalkaasi horta masaladaas uu inaga qanciyay jahiliyada marka ayaa keentay in dadka qaarkood nasabkooda iyo dhalashadooda lagu yeeso oo la yiraahdo looma guuriyo lagamana guursado oo la yiraahdo la takooro oo hangool la isaga qabto hoos loo fiiriyo waxa keentay aadamuhu markuu ka fogaaday ilaahay tabaaraka wa tacaala asalku jideeyay bay jaahiliyadaasi soo gashay kullama ay aadamuhu ka fogaado ilaahay waxyigiisii iyo asalku jideeyayna jaahiliyaadka noocaas nolosha way saameeyay ibn aadam taariikhan waa sidaas nabigeennuna salawaatu rabbi wa salaamu alayhi xadiis saxiix wuxuu ku leeyahay dhowr arrimood ummadaydu dayn mayso kufri baana ku jira dhowr arrimood kufri baa ku jira ummadaydu dayn mayso waxa kamid ah al-fakhru fi al-ahsab sharafkii awowiyada iyo aabayaashii in la isugu faano والطعن في الأنساب نصب يالك إن لا الضره وضدك النصب كوضا وحلا يشيغو إيوه إن حدقاها اللي روب دونه الرمي جاهلية ودين لآن وجاهلية اللي قد حلوية من النبي صلى الله عليه وسلم ومضى يدون الدين ميسو وحلا كريا معه asalkaasi marka horta inaad wax ku qaybsatood fahantood miisaan ka qaadato hadaa tahay adoon ilaahay yaqaano u hoggaansan waa laga maarmaan qodobka labaad ee aayadu taqriirisay waxa weeye waja'alnaakum shu'uuban wa qabaa'il abiyo hooyo markay idin dhaleen kadib baa waxaan idin ka dhignay qaran شعبيال iyo qabiilooyin shacabka iyo qabiilku waa kala weyn qabiilku waa ka hooseeya shacabku waa qaran waa mujtamac meel wada degan isku muxuu ahaayay ama wadan ka dhaxeeyo ama wuxuun wadaaga Soomaali baa la dhihi Arab baa la dhihi Fulaan baa la dhihi Turki baa la dhihi وشعوب واحد شعوب تاس وحكا هوسية شعوبتي أكلا بحضار قبيلوين كا إيا شعوب تا محال إذن كردقاي أنك مينا الله إيمانين مانا آذان سمي سنين ريهبل إنا النقطنا واحد أدوك الدورة معه هذه اختيار كاغ ريهبل ماذا كن نقول إنا هبل ماذا كن نقول يا كردقاي الله تبارك وتعالى وجعلناكم أننا إذن كردقنا بالله تبارك وتعالى wax ilaahay ka dhigayna oo ku siiyeyna dadka kaleeto kagama fiicnaan kartida waxaad kasbatay baa dadka lagaga fiicnaada waxaad shaqaysatay oo adigu kasabtay oo aad ku dadaashay oo soo saartay baa dadka lagaga fiicnaadaaye wax rabbi bixiyay tabaaraka wa tacaala oo ku qasbantood ilaa ba tahay ilaahayna ka dhigay magac lagu ma helo qiimana lagu ma yeesho dadkana lagagama fiicnaado marka shucuub iyo qabaa'il ilaahay baa dadkan ka dhigay marka hore asalkoodii mid ka dhigay kadibna inay kala baxaan oo ay qabiilooyin noqdaan oo ay jilibyo noqdaan oo ay lafan noqdaan oo ay shucuub noqdaan waa qorshe rabbi tabaaraka wa tacaala uu sameeyay waa su'aasha waxay tahay marka muhiimka ah qabiilooyin in dadka laga dhigo shucuub iyo qaramo laga dhigo xikmadda ku jirta maxay tahay الله تبارك وتعالى وعديه كما هرينه وحوري لتعارفوا إن اسكرتان أو لغو قرتو
abtirkaaga la garto qabiilkaaga la garto qarankaad ka soo jeeda la garto waddankaad ka soo jeeda la garto maxaa ku jiro xikmad ah in qabiilkaaga la garto nasabkaaga la garto qarankaaga la garto xikmado badan baa ku jirta bal nolosha bini aadamku dhan waxayba ku salaysan tahayba in inta la garto haddii la garan waayo nolosha dhan ba way isku dhaxyaacay saas daradeed baa nabigeenu wuxuu sallallahu alayhi wasallam xadiidka saxiixa ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum nabi sallallahu alayhi wasallam nasabyaalkiina waxaad ka barataan wax aad qaraabadiina ku xiriirisaan nasabka in la barto oo abtirka la barto oo dadku siday ku kala xigaan la barto oo intay ku kala jiraan la barto waa arin nabigu amray salawaatu rabbi wa salaamu alayhi nasabku inuu jiro iyo dhalashaduna waa maqsad kamida maqaasida shariicada oo ilaalisay waliba ilaalisay ahkaam fara badan baa loo dajiyay inuu nasabku ilaashanaado oo xataa wixii soo gali lahaa laga ilaaliyo ahkaam fara badan waa ku jirtaa ahkaamta ku jirta waxa kamid ah hal isguursadaa la yiri dumarka aad guursan karto iyo dumarka aadan guursan karin haddii nasabku lumo lama kala garan karo sooma litacaarafu inaad la garto dhalashada iyo nasabka waxaa ku xidhan yaa guurkiisu kuu bannaan yahay yaanse guurkiisu kuu bannaanayn وإلا هدو نصب كلمه هوريرتا iyo eedada iyo walaasha iyo gabadha adeerka u tahay baa dhici lahayd in ay reer ku noqoto markaana ay lunto asal weyn oo ibn aadamka jiritaankiisa qayb ka ah ahkaamta ku jirtay kamid waxa kamid ah masalada weyn ee dhaxalka ruux markuu dhinto xoolo ka tago yaa dhaxlaya yaa dhaxalkiisa iska leh yaa xoolahan iska leh waxay ku salaysan tahay in nasabkiisa la garto xididkiisa la garto say u kala sokeeyaan la fahmo waa ilaa dhaxal ma suuroobi karaba dhaxalku wuxuu ku fadhiyaa in ruuxan la garto qaraabadiisii dhinac kasta ka imanayaan waa nasabka waa waxaa ka mid ah ahkaamta ku fadhida qabiilku waxa loo yeelay oo nasabka loo ilaaliyay in la isku xiriiriyo oo nooc iskaashi iyo wax wada qabsi away nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wuxuu yiri ruuxii jecel in cimrigiisa loo dheereeyo rizqiisa loo waasiciyo qaraabadiisa ha xiriiriyo qaraabo goyskana waa ahlu naar qaraabadaada inaad xiriiriso ay waajibka kugu tahay waxaad ku garan kartaa nasabka inaad garato dadku siday kugu kala sokeeyaan saas daradeed baa nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri sadaqada la siiyo ruuxa qariibka ee ku dhow laba ajir bay leedahay sadaqatun wasila bu nabigu sallallahu alayhi wasallam waa qaraabo xiriirsnimo ajirkeed iyo ajir sadaqa labaduba ku jiraan nooc iskaashiya oo kii tabarta darnaa lagu caawinayo oo kii liitay lagu caawinayo oo reerka kii rafaadsanaa laga warhaynayo oo la isku xiriirinayo wax la isugu qabanayo weeyaan nasabka iyo qabiilka xikmadda darteed inuu jirana waa loogu talagalay oo waa ka xataa shariicadu waajibisay diyada iyo makta markuu dilku gaf yahay oo ruuxu si ku talagal la'aana uu ruux u dilo magba ka waajibaysa magtaasi waxay ku waajibaysaa sida xadiidka nabiga ku sugan sallallahu alayhi wasallam qaraabadiisay ku waajibaysaa عاقلة يكون بس حديث في صحيح البخاري ما كتصيا إن ما ذي الردي هو السيحية بالغربة مقطع إني بحيان صوبت وحي تهي
dilka khaladka ee gafka ku dhacay ruux kasta waa ka dhici karaa waxaa loogu talagalay in la iscaawiyo jiritaanka marka nasabka iyo qabiilka xikmado fara badan oo la koobi karin iyo ahkaam sharciya ku salaysan meeshaasi marka li tacaarafu inaad isgarataan waa haddaan la isgaranin oo dadku isku dhaxyaacaan oo dhalashadii iyo nasabkii iyo wax kasta aan la kala saarin waxaa imaanaysa in xataa ay isku dhaxyaacdo waxyaalo asaasiya oo noloshu ayna ka maarmin oo dadkii la kala garan waa la kala saari kari waa maanta haddaad u fiirsataan Soomaalida markii dawladeedii burburtay oo nidaamyadii oo dhan ka baaba'een dadkii dibadda soo aaday oo dadinku ka mid yihiin dadkii xagga lagaga yimid oo account aan lahayn oo in badan oo ka mid ah documenti ayna lahayn waxa la isku garan oo lacagta la isugu diri oo shirkaduhu wax ku siin oo lagu raadin ruuxii waa qabiil Sooma waa reehebel buu ka siiyay reehebel buu ka siiyay intaasaad meeshan ka qoraysaa meel alla meeshuu jiraba waa la keeni ruux kalena kuma khaldami karo lacagtiisina waa la siinaa marka waxa weeye dhanka marka loo isticmaalo oo tacaarufu loola jeeday ahkaamta ka dhalanaysa horta nasabka iyo dhalashadii qabiilku inuu jiro waa mas'ala asaasiya nabigeenuna salawaatu rabbi wa salaamu alayhi qabiilka ma baabi'inin diintani markay timid qabyaaladii bay baabi'isay iyo qabiilka sidii xun loo isticmaalayay laakiin qabiilka jiritaankiisa ma baabi'in hatta ugaasiyadii ma baabi'inin ugaasiyadii salaadiintii يعني رجي مدح دقامات كأوها قبيلوين نبي ما ترترين صلوات ربي وسلام عليه سيدو دي بيوتشرين حتى إنه ترتر إسكاب الداية مبدلين لما هي النبي صلوات ربي وسلام عليه ونين غير سلطان شجرة كتوري ونين كله كبدلين هل نبتشر نين كاسين وحوها غير كسلطان كأوها بابكسو عبتوي وحي له ونين كعن أضاقوا بخيل ورجال النبي محمد صلى الله عليه وسلم نين بخيل وقاس من نقون كره كوان إني كبدل هيل بان إني كبدل بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنك مضحضة ده بعدها وأساس سنة لجرة وحكم إنه قعم فريه نين كاسو النبي كبدل السجنة غير كيسي وبخيل لما كل شيء كهيد دافور النبي صلى الله عليه وسلم نين كلا النبي كبدل ما تشرب حتى مجالدي في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لو الرهير بقى وحق بدنا أوس يا خزرج بقى وحق بدنا لو نين بقى وقاس يكاها سعد بن عبادة يا سعد بن معاذ سيدو دي بقى وقاس يوهاي وحي مجالده وجب هذا حولها الرهير كوجب هذا أيقو النبي وكلت شنجري صلوات ربي وسلام عليه دعوين فربضن طبعا قدوس مرك إسلام كسيدي سبع قبيلك هي النصبك و إلى اليهود لساي مدميو هل كوحن روايين إنه كلا صارنا مرك وإنه كلا فهنه قبيلة هي قبيلك وأنا أرين دقيقة واحد قبيلة وإن قبيلك الله استعماله صح وشريعة أن وفق صنين قبيلك الله استعماله إن ظلم لا يسويه لي نصبك على شدي الله استعماله إن ضدك اللجو يصب إن ديك لجو داريو إن واحد لجو خربه إن واحد لجو بربريو سيدا مركي نقطه وقبيلة قبيل معه تو قرآن كشاعي لنا إلاليي وقبيلك هي النصبك أما قبيلة ما يا قبيلة دواميد شرعة فوقي سوي مهمة دا سمرك وحوي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن إسقرتان هي حكمة كتشرتي النصب إنه تشرو هي إن قبيل كتشرو ومثله شرعة مقاصد هذا كمان إنه تشرتوا إنه بابا أذنا معه إنه بابا أذنا إنه سيتشرتوا حكمة كتشرو درادة الله تبارك وتعالى مركا كذب وحولي إن أكرمكم عند الله أتقاكم روح إلهي أكتيس إذن كو كرامة بدن إذن كو شرف بدن وامدك إذن كو عبس بدن ميزانك يواك مرك
هنا المحك ميزانك الرسمي للدونية إنا دتك كم ميزان تواك معها أصلكي والقلوة داقة معها قبيل والقلوة داقة أما هلقا يراد أما هلقا بدناضو تادتك كما في عند إلهي باكار نجا إسكمادا نجن لكن ماشا لغو كلا بيحي وحوي ميزانك دتك كلا سارية نين حن هي نين فيعن هي نين قنأ هي نين قبأ هي نين سرع هي نين هو سكر نجاية إن أكرمكم عند الله أتقاكم كإذن كو شرف بدن إذن كو كرامة بدن واميد كإذن كو عبس بدن إذن كو الدين بدن إذن كو إيمان فيعن إذن كو أعماش صالحة إذن كو فيعن الله كعبسك حمان تقول لك تقو خير كل وجود داله كإذن كو فيعن با إذن كو شرف بدن شرف مركة هي مقع هل كاسو كتيره ميزانك وكا وكان النبي يقول يري صلوات ربي وسلام عليه ملكه يقول لا فضل لعجمي على عربي ولا عرب لعربي على عجمي إلا بالتقوى أبو نبي صلى الله عليه وسلم وحي كوكلا في عنان كرا ويكوكلا فضل بنان كرا وأن الله كعبس نينك إلهي كاغا عبس بدن أو كا تقوى في عن أو كا عبادة في عن أو كا إيمان في عن نينك سوى كا شرف بدن يهي أما كتر بدنو أما كرقال بدنو أما كرسي يعني بحو مدحني ما كفردي وحاسو شرفك كما يمادو ميزانك الربي وإن الدين له سيدا دتك أقدم في عن طيب أو شرف في عن أصل كاس واكا أصل كاس واكا إنك مركب محن كدقنوا ماشي أرنت إنه كخلد أنت وحوي ماشي أهيد إن أكرمكم عند الله أتقاكم أيها وحن كدقني إن أكرمكم عند الله أكثركم نفرا نينك إلهي أكتيز إذن كو قيمة بدن إذن كو شرف بدن وانك إذن كو الله ديري سنوه ولسانو بدل فيري وميزانك نحدينا كشقية واه أفكا مينا كغهلين هونين إسلسو تاقي مجر لكن ميزانك الرسمي كو شقينه باسيدنا ماشي بلاي إنك عصيبتين هالكاوة مقاييستي موازينتي شرعات وقلت لك شيء إن ضدك اللقوك لا فضيلة كاسوة النبي يقول صلوات ربي وسلام عليه ضدك والله بقى واحد صدحي مجر تقي كريم على الله إن الله كعب صدى وبارع إلهي بارع إلهي أكتي سنة كريمك وأشرف كله مد شقئة فاجرة جدك أمري ويهي جد إلهي تبارك وتعالى وسرالك أهي آخرنا إلهي أكتي سنار يا عذاب كله الله بضع أمويدته كاس فاجر كجدك حون قاضينا إلهي أكتي سقيمكم له كان جدك وناكسن قاضينا وإلهي أكتي سو كرامك كله كرامدي سنة قلبه وحي كحرانتها قياسته إلهي أولوية تاسي دادكو كوكا لتغيير ميزانك مركز صحدة اللوبة هي إن نرشينا أي قصة ليسانتك أي سقام النبي صلى الله عليه وسلم وحل ويدي من أكرم الناس رسول الله ودادك يأو كرامة بدا دادك يأو شرف بدا وركز النبي صلى الله عليه وسلم أتقاهم هذا وعبس بدا يأو الدين بدا وحيدا ليس عن هذا نسألك تاكما نويدين بنه وركز النبي صلى الله عليه وسلم فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله هذا السؤال شيء نصاء هين وتكوتان دلشة أهان ضدك يا أبو شرف بدن يوسف أبو شرف بدن والنبي أبيين النبي بوها هو نبي يعقوب صومه أوجين النبي بوها هو نبي إسحاق أوجي صلباننا وخليل الرحمن إبراهيم صومه لما هي الكرو نين إسقون النبي سدح النبينا كو أبتر صدا ويوسف هين لما هي الكرو شرف ضل شهد أضربته الكاسو قلي وركاسا واحد هذا ليس عن هذا نسألك وده تاكم أنا ويدين ما حد ويدين إذا مركاسا النبي يقول فهمي سؤال شو ذي وحولي
فعن معادن العرب تسألوني ما أصوش إيا قبائش عربيت بعد حيقا ويدينيسان ها بيدين مركز النبي صلى الله عليه وسلم خيارهم في الإسلام خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا انت ينصو إسلام إنه إسلام ككهر كوا دي أقو أخيار سنة أيام مركي إسلام كان صوغ علينا أقو أخيار سن مركي دين تفهمان أخيار نمدي الجاهلية أم الله صو إسلامين وأخيار كوي حديث كاسي مركي وحوت المامية من أكرم الناس أتقاهم إن أكرمكم عند الله أتقاكم قاعدة مركي تاية دوا نبي محمد صلوات ربي وسلام عليه مجتمع يقول الشيء ري مدينة ري مكة كدي من المدينة أساس كاسو كودس وحسن مي ودولة دي النبي صلى الله عليه وسلم هي مجتمع رسي كسن مي نكي لا أدون سنشري إيه مدوبان أدون كأها هي نكي قريشي كأها إيه هاشمي كأها إيه عرب نصب أهان وقسري ayaa sinmay labadaasi markay sinmeen oo la arkay bilaal oo adoon ah oo sayid ah oo kor loo qaaday wax alla wixii qalbigiisa khayr ku jiro dhan diinta waa jeclaaday diin aan cunsuriye lahayn oo wax kala soocid lahayn oo ruuxa amalkiisa ku qiimeynaysa oo tartama idin la tartama waxa la timaadon ba wax lagu siin midab kuguma fogeynayso dhaqaale xumo iyo faqri lagu nicmaayo kan kugu dhaama inta lagu soo dhawaysan maayo laakiin inna akramakum inda allahi atqaakum inta kaliya nabiga kagama hadhina salawaatu rabbi wa salaam alayhi markuu intuu soo hijrooday magaalada Madiina yimid qodobadii ugu horeeyay ee uu ku tilaabsaday markuu masaajidka dhisay masaajidka lagu bilaabo shaqo la bilaabo waxyaali ugu horeeyay nabigu bilaabo waxay ahayd al-mu'akha bayna al-muhajirin wal ansar dadkii meesha loogu yimid reer Madiina iyo walaalahoodii Makka ka yimid nabiga la socday ama ka soo horeeyay in la isku xiro oo la walaaleeyo nin kasto muhaajiriya waxa walaal looga dhigay nin ansaari ah waa walaalka bal quud iyo qaaraan baad wadaagtaan guryahoodii baa la geeyay wax walba ay la wadaageen hatta waxa laga dhigay dhaxalka hatta uu ku dhaxlay adiguna waa dhaxal saasa markii hore laga dhigay dib baa laga bedelay mooyee si mujtamacu isu dhaxgalo oo fawaariqdan deegaamadu u baabaado ila deegaamo kala gedisan baa laga soo jeedaa oo qabaa'il kala gedisan baa laga soo jeedaa si arinta iyada ah mujtamacu isu dhaxgalo si dhab u walaaloobo nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu isugu xidhay laba waana isdhaxlaysaan buu salawaatu rabbi wa salaam alayhi arintaasi waxay ahayd daawo weyn waxaana ka soo baxay mujtamacaad garanaysaan ee taariikhda la yaqaan adduunka sajilay ee nabi maxamed salawaatu rabbi wa salaam alayhi uu dhisay ummad marka halkaasuu nabigu mariyay quraanku mariyay sunnada nabiguna marisay salawaatu rabbi wa salaam alayhi tayib markii qaacidada iyo asalka iyo miisaanka laga leexdo oo lagu badasho in qabyaalad ama kooxaysi ama gobolaysi ama wax saasoo kala la isku naco oo la isku fogeeyo oo la isku soo dhaweeyo oo ruuxa ay noqoto aniga yaani hiilkaygi hoogaygu waa reerkayga oo ay noqoto kabtaada iyo reerkaaga waa lagu dhex jiraa dadkaaga ka dhaxbeen tolkaaga iyo kabtaada ba ku dhex jira oo ay noqoto sida carabtu dhigi jirtay wa hal ana illa min ghaziyata in ghawat ghawaytu wa in tarshud ghaziyatu arshudi anu reer ghaziya baana ghaziya haday hagaagtana waan la hagaag ghaziya haday halowdana waan la halowsanay waxay tahay baana sooma reerkaygaan ku gowracnahay waxay yihiin waan la ahay go'aankay qaateenna waa la jira ciday col leeyihiin col baan la ahay ciday heshiis leeyihiin heshiis baan la ahay ciday la dagaalamaan dhiigoodu waa ii banaan yahay
مسألة مركي سيدا نقطه حاجة هاللوضي maxaa iimaanaya way marka waxa iimaanaya idin sheegay waxa nabigeenu sheegay salawaatu rabbi wa salaam alayhi miisaanka marka laga leexdo koow wuxuu dhaawacu gaadhaya waa dhibaatooyinka ka dhalanaya dhaawacu marka ugu horreysay wuxuu gaadhaya dadka iimaankooda madaxa laga dilay salka diinta oo iimaanka ah buu dhaawacu ku bilaabanaya markii iimaankii dhaawac gaadho dhaqankii oo dhanna dhaawac baa gaadhaya inuu dhaawac gaadhayo waxa ku tusay nabigeenu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam awthaqu ura al-iiman al-hubb fi Allah wal-bughd fi Allah wal-muwalatu fi Allah wal-mu'adatu fi Allah iimaanka guntimihiisa ama sidooyinkiisa ama gantooyinkiisa kuwa ugu adag qaybihiisa laga wado iimaanka qaybihiisa kuwa ugu adag waxa weeye inaad ilaahay dartii dadka u jeclaato ilaahay dartii u nacdo waxaad nacayso ilaahay dartii u xiriiriso waxaad xiriirinayso ilaahay dartii u la culoodo waxaad u la culoobayso iimaanka asaal usuushiisa waa weyn ee asaaska waa markay noqoto jacaylkaygu waa reer waa deegaan nacaybkayguna waa deegaan iyo reer xiriirintaydu waa reer fogeyntayduna waa reer soo iimaankaagu ma dhaawacno بل إيمانك جود إسكاب الرافع أصل كي إيمانك وحسكيه والنبي حديث في سورة الوامة صلوات الله وسلامه عليه حديث عبد الله بن عباس روحها من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فقد استكمل الإيمان روحي إلهي درتي وحبش على هذا إلهي درتي أنعى إلهي درتي أحريرية إلهي درتي أولع اللوبة روحها سي إيمانك وما يسترتي بحلقة فهم إياه روحان سيدا يلينا إيمانكي سيوان ناقصي مفهومك حديثك واساس ومد مركا إيمانك يدي ناقصي وحكر لن كراي مرحهم باك صبيح وحكروا كر لنا يا الله بعد إلهي تبارك وتعالى إنه أمدا الدليو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحوها لا ينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا dad weydiinayaan faanka ay ku faanayaan aabayaashoodii dhintay oo haddana jahannama dhuxusha u ah odayaal dhintay oo xumaan ku dhintay oo jahannama galay oo dhuxushii jahannama noqday faanka aad ku faanaysaan waa deynaysaan haddaad dayn weydaan soo ma aw la yakunanna ahwana ala allahi min al-ju'al bi nabi sallallahu alayhi wasallam ama waxay noqon doonaan kuwa ilaahay agtiisa kaliita bahalka la yiraahdo xarwalwaalka ama kolba saad u taqaanaan doolshaanka soo doolshaan la yiraahdo alladhi yudahdi al-khur'a bi anfihi midka saxarada ibn aadamka xarka ibn aadamka intuu duuduubo yu madaxa ku riixaa waa duwayba yar dadka baadiyo way yaqaanaan laakiin dadka magaalka waxa laga yaabaa inaysan garanayn duwayba yar waaye ibn aadamku markuu saxarada ka kaco intay u soo dabamarto ay duuduubto oo sida banooniga oo kale ka dhigto ayay madaxa ku riixi say u dilaan dilinayso u riixaysay godka la galay way cuni marka waxa la yiraahdaa Soomaalidu dhaha doolshaanka ama xarwalwaalkaas wuxuu la qabsaday wax qarmuun sidaas daraadeed wax udgoon ma ba arki karaba ay yiraahdaan hadii cadar aad ku buufiso cadar uu dhiman bay dhahan barfuun hadaad ku buufiso wax udgoon uu dhiman bay dhahan sababtu maxay tahay wax qarmuun buu caadaystay rasuulku sallallahu alayhi wasallam marka wuxuu leeyahay dadka qabiyaalada ku dhaqmaay iyo faanka awowyada iyo aabayaashu ilaahay agtiisa waa kala liidanayaan xarwalwaalka saxarada riixay عناي حديث واحد صحيح waxay culimadu yiraahdaan liidnaantu dhowr dhinac way ka imaan waa mid horta ummadda ilaahay waa burburinaya xumaanna waa badaya sharafteedii iyo qiimaheediina waa baabi'inaya soo inama haysato inaga soo inama haysato
aaway qarannimadii oo aaway magacii oo aaway dawladdii oo aaway dadnimadii oo aaway ixtiraamkii adduunka laynoo hayay aaway soo meel walba maynaa noqon inuu muxuu ahay qaxooti ay dhaqaato soo maynaa noqon oo maxaa dulinimada ka badan maxay halkaasay ina baday waa midda labaade allah tabaaraka wa tacaala wuxuu ku sallidayaa sida xadiista ku sugan cadow ka xoog badan waa natiijo labaad cadow ka xoog badan ayaa lagu sallidayaa markaasuu dhulkoodiina qaadanaya khayraadkoodiina qaadanaya ayaduna soo inama haysato wayna haysataa dhulkii Soomaali ay lahayd idinkuna waad ka soo tagteen intii idinka dambeysay hadday soo qaxday in la qixiyana waa maqsuud in banaanka loo saaro waa maqsuud 20 sano 30 sano 50 sano soo socota wadanka yaa lahaan doona baa laga doodaya yaa lahaan doona waxyaalo fara badan oo shalay la yaabi jirnay maanta lama yaabanin 30 sano kadibna maanta waxaan la yaabanoo rumaysan laanahay waa laga yaabaa inaan rumaysan sooma dulinimo cadow ka xoog badan oo gacanta kugu dhigay lagugu salido dulinimada waxaa ka mid ah xadiisku tilmaamay culimadu say sheegayaan dadku markay qabiyaaladaasi intay ku dhaqmaan ilaahay ciqaabo oo duloobaan sidoodaba wax wanaagsan oo udgoon noloshooda ma aqbalayso wax udgoon mabda macaan mabda qaaliya wax uraya umay rabaan sooma baluufis meel kasto la isugu tago reehebel baan fahanaa laakiin qaran iyo ummadnimo iyo iskaashi iyo midnimo ma fahmi karo sooma ma fahmi karo way udgoon tahay waa barfuumkii dilaya xarwalwalka laakiin reehebel iyo jilib hebel iyo koox hebel iyo gobol hebel waa xaarkii uu xarwalwalku riixayo waay taa uma fahmi karo sooma mabaadidii udgoonayd ee qaaliga ahayd ee basharka gaalka iyo muslimku isku waafaqsanaayeen midnimo iyo qarannimo iyo jiritaan iyo isu imaad iyo dad kale raadso xataa haddaad yaraato ummado kale isku soo biiri halka marka caalamku u sii jeedo annaga hoos baan isu rifaynaa reehebel kasiitag reehebel sida basashii un adigu iskala fiiq kolba qayb tuur kolba yaa kuu soo hadhi macnaheedu waxa way marka yani wixii udgoonaa baa ina dilaya xataa haddaad qurbaha la yimid qurbaha haddii la yimid oo gaalo waddamadooda la yimid oo khatar lagu jiro carruurihiinni ay xidhan yihiin carruurtii xidhan yihiin gurihii khatar ku jiraan diin ahaan iyo adduunya ahaanba halis aad ku jirtaan waxaa la samaystay waxa la yidhaahdo jaaliyado waa magaca reer magaalo qabiilkiibaa waxoogaa shaati kale loo geliyay waxaa la yidhi waa jaaliyado war waa jaaliyada ha dhihina waa reehebel dhah khayr allah idin siiye waa reehebel saasay ku quruxsanta jaaliyado xafiisyo leh barnaamij ka shaqeeya kobolaysi warkaalaya isu yimaada waddamada qaarkood dawladihii loo yimid baa waxay ka shaqaynayoo leeyihiin war hal af noogu imaado idinkoo Soomaaliya noo imaado ma waxaas haddaan Soomaali noqonayna waa horaan noqon lahayn baa laga waa horaan Soomaali noqon lahayn ilaahay baan idinku dhaariyay soo xadiidka nabigu inuguma ruboobin salawaatu rabbi wasalaamu calayh aw la yakunanna ahwana cala allahi min aljucal alladhi yudahdi'u alkhur'a bi anfihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh ummad baabkaa gashoon duloobinna lama hayo taariikhaan markaa dib ugu noqotaan oon taariikhda dib u akhrino waddan Soomaaliya ka qaalisan waddamo Soomaaliya ka qaalisan bay qabyaaladda iyo gobolaysigu gacanta ka bixiyeen waddanka la dhihi jiray Andalus waa waddanka loo yaqaanay al-Firdaws al-Mafquud baa la dhahay firdawsadii la waayay 800 oo sano bay muslimiintu ka talinayeen
sideedda boqol sano xadaaradii ugu cajiibsanayd ee adduunka soo martay ka istaajiyeen waana la isku waafaqsan yahay gaal iyo muslimba horumarkan iyo xadaaradan iyo tiknoolajiyadan reer Yurub ee xadiidka ah waxay ku taagan tahay oo ka dhuxul qaadatay xadaaradii iyo horumarkii muslimiintu ay ka sameeyeen Andalus halkaas ay ka dhuxul qaateen oo horumarka reer galbeedku halkaas suba ka bilowday cilmigii horumarkii xadaaradii muslimiintu ay istaajiyeen dhulkii qaaliga ahaa ee saa u yaalay qiimaha badnaa taariikhda lahaa 800 sano muslimiintu ka talinayeen maxaa lagu waayay bay idin la tahay reebel baa lumiyay qabyaalad baa lumisay gobolaysi baa lumiyay hunguri iyo kursi la isku laayaa lumiyay ilaa markii dambe ay gaadheen nimankii duwaylaadka samaystay dawladaha yar ka samaystay dawladaha yarka waa landis gaada waa landis duwaylaadka aad maqlaysaan Andalus lumiyay waa landiska Soomaaliya ka jira laana waxa way marka hore qabiil iyo nin yaani xiniya iska taabad iyo kuraasi bay ku bilaaban marka dambana waxay noqon hal kala googoosto marka xigtana waxay noqon ayaga in la isku diro oo qorta la isu galiyo leeyahay xuduudaasaad kala leedihiin war adiguna iska celi iyagii ba qorta isugu jiro islaynahayo dhiig daadinahayo isqaribayo hantidoodii ku baabeena inta kaliya looga hadhimaaye waxay noqonaysaa in ay ayagu marka cadawgooda u kala cararaano midba uu ka kale cadawga u soo raaco sidaas Andalus lagu qabtay mid baa tagay Faranjigii buu soo kaxaystay walaaladii buu ula saftay waxa lagu akhriyay adaan dhulka ku qabanayna adaan kula jirnaa dhulkan markaan qabanana adaan kugu wareejinay walaalihii buu ka takhalusay asagoo tabar daranba maalintii dambe inta la qabta isagana laga takhalusay markaas waxa ku rumowday ukiltu yawma ukila athawr al-aswad aw al-abyad ya al-abyad dibigi madooba maalintii la cunay baa la cunay xaaja kuma taala markaa sooma musiibadaas oo maxaa dhalay waa su'aal waxa soo musiiba maxaa dhalay waxa soo musiiba qabyaalad baa dhashay waxa dhibaato idin haysato dhan Soomaali meelay joogto dhan haysata dhulkeedii haysta qaxan hadda cusub ee laga sheekeynay ummadan jidka ku baqtiyaysa umulaha jalla'aanta ah masaa'ibtan waxa dhalay waa qabyaalad ha ahaatee qabyaaladu dadka ma wada gelin rag baa ku adeegtay xaqiiqadeeda marka la yiraahdo qabyaaladu waxay noqotay gaadiid la fuulay oo rag ay ku dangaareen ayaguna dantoodii meena gaadhin nin kursi raadis ah oo jaga raadis ah oo maslaxad doon ah oo isagu dantiisa u socda baa wuxuu isku qanciyay dantaada ma gaari kartid magacan qabiilka intaad huwato awoodiisa iyo dadkiisa ku dagaalgal kursigana ku gaar kulli wixii jabhada wadanka ka kacay oo dhan waxaasay ku soo day ninkii watay kursi doon buu ahaa inuu kursi doon ahaana waxa ku tusaya nin kasta markii loo yimid oo la yiri wareerkii intay la tashaday la yiri warmaya hawsha wareejiya ayagii buu isku laayay hadana gudahooda waa baabi in badan oo kamidana maanta qabriga ku jiraan soo saasma rag marka jaga raadisa oo jaga doona oo hunguri doona oo xoolo doon ah baab mashruucan ummadda geliyay sidaana ugu burburiyay annagana waxaan noqonay wama ataakum ma asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum innaga u diyaarsanayn inaan aqbalno mashaariicda noocaas Soomaaliya warka murtidiisu waxa waay marka la soo ururiyo maanta Soomaali cid aan ahayn hadii la yiraahdo darsi qabyaalad u akhri cid aan Soomaali ahayn oo dhibka qabyaalada aqoonin waxaan isleeyahay macquul bay ahaan lahayd laakiin nin dabkiiba ku gubtay oo ku mudxay u sheeg dabka waa lagu gubtaa ka war dabka waa lagu gubtaa maanta dhan ku cilal wuuba gubtayba waana mudxayba sooma tawfiiq ilaahay baa inaga maqan mooyee
laakiin faham qabyaladeed inaga ma maqna soo sidaas ma masaladu tawfiiq ilaahi baa inaga maqan laakiin faham qabyaladeed maanta dadkii laga dhaadhicin lahaa loo akhrin lahaa ma nihin waaba ku gubanayba laakiin xaqiiqadu waxay tahay nabigeenna wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiid ka sugan fitanku markay bataan oo dhiigga daadanayo iyo kharbudaadda iyo bililiqaysiga iyo xaaraanta la banaysto dadka waxaa alla ka dhigayaa buu nebigu sal alay wasalam cuquusha iyo garashada laga saaraya wax alla wixii caqli iyo garasho ah waa laga saaraya nebigu markuu yidhi waad islayn doontaan derisku dili doonaa eber baad iska dhigi doontaan waxay yidhahdeen ma annagoo caqliganagii leh ma annagoo caqligii nagu jiro maya wuxuu yidhi dadka wakhtigaa imaan doona cuquushaa laga qaadi doonaa ilaahay tabaaraka wa tacaala wixii khayr ahayna waafaji xoolaha waxaa la yidhahdaa adhiga iyo xoolaha ninkii raaci jiray baa garanaya xoolaha markaad adhiga foofiso oo aad soo daajiso oo isagoo duurka daaqaya ay dhawaca gasho ama waraabe galo ama jiifa galo oo uu neef ka reebto oo adhigu dido cararo maalinta dambe xataa dhowr bari kadib maalinta dambe haddaad adhigii soo kaxayso oo kayntii iyada ahayd aad ku dareeriso naftu ma siinayso adhigaasi inuu kaynta galo soo run ma aw dadkii adhiga soo saas ma adhigaasi markuu meeshii shalay neefka lagaga hadhay markuu madaxa la sii galayo waa soo didahaya sababtu maxay tahay shalay buu wacdaro uga joogay shalay buu wacdaro u joogay oo meeshan lagu galay Soomaali qabyaalad lagu gal oo dhulkeedii burburi oo qixi oo gaalo u gacan geli oo dhowr iyo 20 sano ka badan rafaad iyo qurbo ku noole oo diintoodii adduunyadoodii baabay haddana maca dalika ariga didaya xataa waa noqon laayay ariga didahayo meeshii shalay balaayadu ku qabsaday ka didahaya xataa waa noqon laayay soo cuquushi ma maqna marka soo xadiiska nabiga ma cuquushi waa maqan garashadii baa maqan cilmi badan inaga ma maqneen ilaahay tawfiiqda hayna siiyo ilaahay tabaaraka wa tacaala tawfiiqda allah hayna siiyo ilaahayna tabaaraka wa tacaala quluubteena allah isu soo daweeyo qabyaaladii wuxuu yidhi ninkii gabayaaga ah qabyaaladii waxay dumisa mooye dugsi male waxay dumisa mooye xaqiiqo waa xakiim cabire waa qabyaaladii waxay dumisa mooye dugsi male sidaas daraaddeed ilaahay tabaaraka wa tacaala ummadda qalbigeeda allah isu soo dumo allah iskan jeclaysiiyo ilaahay tabaaraka wa tacaala qurunkii qabyaaladda allah inaga saaro ilaahay qabyaaladii qashinka allah inaga saaro iimaankii islaamnimada allah inagu walaaleeyo qaybsanaanta allah inaga saaro furqada iyo kala tagga allah inaga saaro midnimo iyo walaalnimo allah inoogu bedelo ilaahay tabaaraka wa tacaala wanaaggeena allah istuso xumaanteennana allah inaga asturo ilaahay waxaan ka baryaynaa tabaaraka wa tacaala ummadda islaamka ah ee diinta leh ee khayrka jecel ninka xumaantooda ka shaqaynaya oo qabyaalad isticmaalaya magac qabiil isticmaalaya oo isku burburinaya oo masaalixdeeda seejinaya ninka ilaahay hadduusan hanuun la damcin ilaahay hadduu hanuun la damcayna ha soo hanuuniyo hadduusan hanuun la damcinna reerkuu dooni ha noqdee alla halaago aamiin dha ninkuu dooni ha noqdee ummaddaa ninkii xumaan la raba oo qabyaalad ku dhex wada oo burburinaya oo masaalixdeeda iyo midnimadeeda ka hor jeeda ilaahay waxaan weydiisanaynaa tabaaraka wa tacaala hadduu hanuun la damco u qorayna inuu soo hanuuniyo hadduusan hanuun u qorina inuu ummadda uga raaxeeyo ilaahay taasaan weydiisanaynaa tabaaraka wa tacaala kelimada inta aan ku soo gabagabeeyo waxaad og tahay ma kuu sheegaa un weye jazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu marka waxaan jeclaan lahaa in sheekhu maadaama uu waddankii hadda kenya uu ka yimid runtii weliba barnaamij aad iyo aad u ballaaran oo loogu gurmanayo dhibaatooyinka Soomaaliya ka jira abaaraha uu sheekhu horseed ka ahaa socod iyo yani wardoonna uu u tegay xeryaha dadka qaxootiga ay ku soo gurmeen waxaan sheekhu ka codsanaynaa inuu warbixin naga siiyo waa tii aan hadda ka warramaynay runtii ummadda dhibkeeda
إلهي تبارك وتعالى أمبا كقاضي كري الله كقاضو runtii horta waad ka warhaysaan oo xog badan u malayn maayo inay idinku seegan tahay maxaa yeelay warbaahinta ayaa runtii aad barnaamijka u gudbisay nin niyad sami ay ka tahay iyo nin barnaamij kale ku wataba warka markaan soo ururiyo dadka dhibka gaadhay xataa ninka tagay oo soo arkay si uu u cabiro ma garanaya ma la cabiri karo haddii si kasta loo cabiro waxa meesha yaallaa ka culus annaga meel maana wada tegin dhulka dadku u qaxeen meelaha u badani waa Itoobiya gudaheeda dolow eriyadeeda dadka u qaxay ilaa taqriiban taqriirka rasmiga ilaa 160 ruux ilaa 160 kun oo ruux ayaa xiriyaha ku jira dhankan meesha ka weyntaasi waa dhanka Kenya dadka soo aaday oo xiriyihii qaxootiga horay u sii jiray nafta la soo aaday dadkaasi waxay gaadhayaan sanad gudihii dadka soo qaxay waxay gaadhayaan taqriiban 270 kun bay gaadhayaan qaxootigii hore meesha sii joogay waxay ahaayeen 130 kun haddana waxay marayaan 400 iyo ziyaado kun bay hadda marayaan maalin kasta waxaa soo galaya oo lagu qiyaasaya dadka maalin walba soo galaya ilaa 1500 ilaa 2000 oo ruux yaa yawmiyan soo xaroota dadka intooda kale wax waa qaybta xamar xaggeeda u qaxday waxna deegaamadii laga soo qaxay baa xiriyo looga sameeyay joogaan xiriyahaasi tiradoodu ma gaadho kuwa banaanada u qaxay laakiin xiriyaha gudihiina ka jira magaalooyinka badankood ka samaysan ummadaas dhibaatada haysata waa dad wax kasto ibni aadan u baahan yahay wax ibni aadan u baahan yahay oo ay haystaan ma jiro waa qaawan yihiin oo way aradan yihiin rag iyo dumar waa qaawan yihiin waa mid labaade waa gaajaysan yihiin oo gaajadu midii shalay iyo daraad kugu dhacday waabad ka kaban kartaa gaajo la faha gaadhay oo jirkoodii nafaqada ka dhamaysay oo waqti haysay baa ka muuqata laana dadku meesha markay ka soo qaxayaan xilligii roobka bilihiisii u dambeeyay baa la joogaa waxay islahaayeen roob baa da'aya beeray beerteen intooda badan beerahay beerteen roobkii labaad markay sugayaan bay ba'een meelana roobba kuma diin waxyaalaha la yaab kale waxa la yidhaahdaa abaaro 3 sano 4 sano kuwan ka dheer baa soo maray wadanka tan saamaynta ay yeelatayna ma yeelanin arintaas su'aal isweydiiyay waa laakiin markii la baaray waxaa la ogaaday dadkan waxa kharibay badankood horta waa beeraley waa dadkii beeraha beeran jiray waxa kharibay waayahan dambe Soomaaliya waxa ka bilowday ganacsi aan raashinka culus ahayn laakiin sinsinta iyo wixii la mid ah dadkii marka waxay iska dhaadhiciyeen waagii hore inta la beerto beeraha oo masagadu go'do oo digirtu go'do yaa bakaaraha la gashan jiray markaasaa lagu noolaan jiray 10 sano ka badan ka yar lagu noolaan jiray waxaa dhacday baa lagu leeyahay kambaniya yimid lacag wata sinsinta iibsanaya beerihii oo dhan sinsin baa lagu beeray kambaniyii dadkii lacagtii way ka iibsadeen oo lacag bay siiyeen sintin markay ka gateen sinsintii lacagtii xoolay dadkii siisteen ofirs bakaartii maxaa bedelay xoolaa bedelay xoolihii markay abaartu timid bakaartu way adkaysan lahayd xoolihii ma adkaysanin xoolihii waa dhamaadeen bakaartiina horay u dhamaatay waxba lama gelinin
meeshaasaa marka waxaa timid xaggee kuugu dhowood naf la gaari karta horta dhibka asal ahaan waxaa qayb ka ah farsamo xumada waxaa kaloo qayb ka ah oo dadka inay beerihii beertaan in badan sabab oo inay beeran waayaan hay-adahan UN-ka qaar ka mid oo markay dadku intay beertaan oo rafaadaan oo beertu soo go'ayso bilaaba inay raashin qaybiyaan ninkii beertu u soo go'aysay ee rafaaday intaasoo bilood rafaasanaa beerta suuq u heli lahaa suuqii waxaa yaala raashinkii yani WFP baa yaala xaggee buu geynaa marka dhididkiisii rafaadkiisii raashinkii waa ku baaray waxaa soo baxday marka kolley hay-adahan raashin bixin doonee waxba ha isku mashquulin raashin beeridiisa asbaabta runtii keentay musiibadan horta burburka iyo dawlad la'aanta iyo dulmiga iyo wixii marka laga tago asbaabtan waay dadku saan idin sheegay waa meelaha u badan ee dadku ay ka qaxeen ama musiibadu u badan tahayna saad ka warhaysaan dadkan annaga aan u tagnay badankood waxay ka yimaadeen gobollada Gado Baay iyo Bokool Hiiraan dad aan badnayn baa ka yimid iyo wixii xamar ka soo rogan intaasoo dhan way ka yimaadeen say u kala badan yihiin waxaa u badan Baay Bokool iyo Gada u badan dadka badankood meeshaas ka imaanaya dadkan meesha ugu tagnay saan idin sheegayba dhibaato kasto ibni aadan uu qabo way qabaan qaar ka mid ah waxay soo lugeeyeen markaan wareysanay 25 bari bay sulug soo ahaayeen qaar ka mid ah bil bay soo lugeynayeen ilaa ay soo gaadheen xiriyaha qaxootiyada dadkaasi waxay u badan yihiin dad tabar daran dumar iyo carruur bay u badan yihiin hal goob baa waxaan ugu tagnay taqriiban dumar 100 ku dhow oo umulo ah iyo kuwa uur la ah markaan qiyaasay haweenta ilmaha ugu da'weyn haysata ilmaheedu 2 bilood buu jiraa qaar marka aan meesha taagannahay bay foolanayaan wanagoo taagan bay ku foosheen waa sidaa dadka markaan warsanay qaar badan carruurtoodii jidkay kaga yimaadeen 5 ilmood 4 ilmood bay wadataa ma wadi karto mid calooshay ku sidaa 4 kalena gacmaha haysaa markay wadi kari weydo waxay kaga imaanaysaa muxuu ahaayay 2 3 way iska kala fududeeyeen waxay badbaadin kartay badbaadinay duqeyti dhexda lagaga yimid odayaal dhexda lagaga yimid dad badan baa dhexda lagu soo dhaafay wixii soo gaari karay baa meesha soo gaaray dadkaasi duruufaha haysta waa duruufaha noocaas way qaawan yihiin jirkooda nafaqadii baa ka dhamaato xiriyaha haday soo gaadheen bay dhimanayaan meesha hadii la yimid hay-adihii UN-ka ee lagu soo socday la islaa waxbay qabanayaan meesha waxaan ugu tagnay dad 30 bari meesha jooga oo kaar yar gacanta loogu xidhay oo aan loo taagin xataa kooba qamandi ah 30 bari buu wareegaya ma garanayo hay-adaha ma tabardarra haysa maxaasidnimay ka tahay Allahu a'lam laakiin dadkii waxba looma qabanin waxa aad qaylo maqlaysaan madax hebel baa tagay ku xigeen baa tagay hebel baa booqday waxa aad maqlaysaan ilaa hadda jawaab rasmi ah ma jirto annaga meesha joogna waxa u badan ee dadka gaadhay ilaahay tabaaraka wa tacaala ma hadi ha ka gaadhay dadka u gurmaday ugu horeeyay waa dadkii qaxootiga walaalahooda ay soo duldegeen oo iyaga laftooda aad garanaysaan tabardaradooda ma taqaana waxa la siiyo wiigi waxa la siiyaa muxuu 3 kiilo oo bur ah iyo ma aqaano muxuu ahaayay kiilo muxuu ah saliid ah bas malaha kontonka doolar u tuurtaan bay ku noolyihiin iyagii sida aha Soomaalidu waxay yiraahdaan adoo harsan waay ma lagu soo hargalay adoo harsan la oo gaajo la harsan la haddii marti lagu noqdo soo duldaga ka war dadkii meesha sii joogay waxay karsan kari waayaan xataa raashin bay karsan kari waayaan ilaa dadkii markay meesha yimaadeen cusba magaaladii bay ku faafeen maqaayadii wixii ka karahayay raashinkii gab adamada ka celin kara 20 ruux 30 ruux oo gaajaysan haday maqaayada soo galaan naf baa haysa way ku dagayaan ruuxii dheriga dabka saarta dherigii dabka saarna waxa dul iimaanaya 20 baa soo dul fadhiisanay
وما إلمها قادسين ما ذا عني ما أي قادسين لا يسكدوا الرفاد dadkaasi waxay qaban kareen way qabteen dharbay ururiyeen yaani ayagoo caano u qaybinaya dumarkaasi umulaha baan u tagnay oo caruurtii yar dhalana jal wax afka u saaraya barax intay u barxeen ayagina afka u saaraya aad bay u gurmadeen dadka qaxootiga u horeeyay wax u gurmada soo qayliya kadibna waa ilaahay fadligiye waxa yaani wax way runtii aad mahad weyn ah ummadda Soomaaliyeed qayladii markay gaadhay meel walba waa laga gurmaday waxaan dhihi karaa arrin sidan oo kale loogu gurmaday ma xusuusto intaan Soomaalida garanay meel aniga centran jooga arrimaha dhan baa igu soo dhaca masaajidanada kaliya islii ayaa waxaan ka ururinay lacag taqriiban 250 ilaa 300 kun oo dollar ku dhow oo masaajida islii Mombasa lacag 200 kun oo dollar ku dhow baa laga ururiyay waxa inta dheer raashimada iyo dharka ila taqriiban 200 baabuur waa gaadheen kadib waxa soo furmay muslimiintii kale carabta gurmanaysa hay'adaha muassasadka dadkiina dibadda jira ilaahay khayr ha idin siiyo aad iyo aad warku markuu idin soo gaadhay gurmad aad u fiican bay dadku sameeyeen maraakiistii masaajidii ashkhaastii gabadha soo hadlaysay keligay baan tuulo joogaa sheekh telefishinka ka fiirsaday $100 baan soo diray meesha laga qaado xad male arintaasi runtii waa dareen muujinaya ummadani wali inay ku jirto walaalnimadii isku xidhnaantii naxariistii isu danqashadii in ilaahay inoo sii kordhiyana waa rajaynaynaa insha Allah ta'ala arinta marka warbixinteedu walaalayaal waa taas dadku waa kabala'aan way qaawan yihiin waa jallaan waa nafaqa la'aan waa hooy la'aan ka ugu nasiib badan gees hoostii buu fadhiyaa UN-ka teendhooyin wuxuga qaybiyay dad yar bay gaadhay dadka badankood ma haystaan oo meel banaan bay fadhiyaan geedo hoostood bay qaarkood harsanayaan qaarna banaanka ay fadhiyaan ummadda marka gurmad bay u baahan tahay wixii la qabtay oo dhan waa dhibic bad lagu dhexriday waa kulli waxa aan sameeynay oo dhan marka la fiiriyo wax tarkeedu waa dhibic bad ku dhexdhacday waa inta kaliya ma aha annaga ilaahay fadligii wixii na soo gaaray waxaan ururinay qaxootiyadan kaliya maanaan ku gaabsanine meel alla meeshii dhibaato ka jirto xira ka samaysantay baan wax ku tuuray wixii na soo gaaray waxaan ururinayba doolo waxbaan u dirnay yaani qaxootiga halkaas dad aaminaan ka helo wax u dirnoo nirgaarsiya muxuu ahaay xiriyahaas xamar sidoo kale hiiraan waxbaan ku tuurnay dhibaatooyin ka jira gudaha baydhaba iyo muxuu ahaay baar dheere iyo deegaamadan dhamaantood dad aamini hay'adaan helay aan wax marino ayagii baan ku turtuurnay wixii kaasheena soo gaaray inaanu meel walba gaarsiin karno ayaan isku daynay wax badan insha Allah ta'ala waa gaareen barnaamijku marka walaalahay saasoo u jira xamar xaggeeda dadka u qaxay hay'ado badan baa soo gaaray dadkan qaxootiga Kenya ku soo qaxay hay'ada gaaray hatta kuwa islaam badan baatay waa meel la teeka dhanka Ethiopia dadka u qaxay waa dadka ugu daran doolow dadka ku qaxay waa dadka u daran wax fiican ma gaarin dadka ku jira xuduudan koonfureed dhalinyaradu ka taliso ama urka shabaab uu ka taliyo ayagana wax badan oo gaaray ma jiro hay'alay hay'adahan gaaladuna wali agtay dib uga yarahayaan hay'adaha carabtuna wali wax fiican oo gaaray ma jiro intaan ka warhayo wax un Soomaalidaasi tuurtuurtay mooyee wax fiican ma gaadhin sidaasay marka duruuftu u kala jirtaa dhibaataduna u kala jirtaa idinkayna mas'uuliyadii xilku ina la yaala waa jirkeeni qayb kamida sida nabiga sallallahu alayhi wasallam hal jir baynu nahay inaan isu xanuunsanno ninka naxariisanin Allah uma naxariisto nabiga sallallahu alayhi wasallam islaamaha umulaha iyo ilmaha xalay dhashay iyo duqa jidka lagaga soo tagay ninka ka nixi waayay ilaahay naxariistiisa ma istaahilo mana mudna marka insha Allah ta'ala wixii aad qabateen khayr Allah idin siiyo wixii kalena hawshu waa ballaaran tahay waqtina inay qaadataa dhici kartee gurmadka hal la wado wixii la heli karo wixii la taaban karo meel walba hal la galo ummadda hal loo gurmado khayr Allah idin siiyo jazaakumullahu khayr assalamu alaykum wa rahmatullahi